gabadhi ciwaankeedu waa maqan yahay ciidamada lagu ma sheega la yiri please guys gabadhaas waa idin baryayaa reer comment hadaa u malaysin ducadiin inay kicin hadarkiina kicin qof anfac familkeedu waxay leeyihiin gabadheena nolol iyo geeri kulaanahay inay isdisha ugu baqeenaaw tiktok-gadna waa hawada ka saartay nolol geeri lagu ma hayo meelay ka soo hadashaan lama hayo anfac xaaladdu way ku xun tahay ayadoo la leeyahay lacag dhacda la ogaa oo been ay sheegtay laakiin hadda ayada la yahay gabadhii anfac ahayd sidaas ilaa iyo hadda la weysan yahay lagu waayo dad qaar waxay leeyihiin been ay sheegaysaa ma aaminayno lacagta meel la martay raadinaysaa familkeedna waxay leeyihiin gabadheena nolol geeri ma ku arkin naya anfac madax suul qandhafil darro badan ku disho madax السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله قال واحد يرجع لكم عفمات مقال كان لكم داود وطار وهرين با أفر بقولكم ساوي كان داود سكراب سر مقال كلا جري كم تكفير كان ساوي هاي كيس كأنفع تاجن أو نقضي كيس مسلسل عن نماد لهن هذا أنفع أيضا الأوجين العق عادي كيس بين سوي الجستي أيضا الرادين أي هذا حال سي شيء إن أيضا لا يهو فمن كذا قرار إسوا قرار حكوا شيء إن قبل ده لببري السنرول يجير كوارك تقارن حيلي ما دام أنفع يفشل متي والعيا دعدي دولة الرادين وح معقول إن يزيد الشباب والله موجي تذكرنا حيلين وعدوني كيس وفقته إذا ما ذكيني ما دام الرادين أيان صور كذا ميلو باللي حارد يكون أنفع مركب أنفع وح أوجي استقيان هذا بس وليا وحقيان أنت إسلهد واحد بتصو أو العقد دع أو كنت تكون ضجيب كشوا والي كفصل له وحيلو ذي إن لقمان كرو لأن عقد تذكيو بدنا أو فلو كعش دار على سو ما دام فيلم كأولوجا أو كهاي أكتر دار على سو السجن حالته كحنتاي السجن هالكاس على يستوي حلي قف ضمبي على لف سوق الإسماعيلي ما دام دار على سو هنجر قف محكمة له أو ضدك وضوضه أو ضدك العوا أوري لكن هذا حلي دار على سو مرضى ما أمينه ما دام عاد أنفع وبيلين وكنت هذا هو داودي ما قناشة أنفع ما لي كراوي ما قنتاي ويزيد الشيء مسي وحلي كرا إذا ما كين كجا بنسا وبنتد بالله أصبحت كلي كرا فير كأكمتيga gabadhii anfac ahayd sidaas ilaa iyo hadda la weysan yahay lagu waayo akoonkaana lacag lagama baxayo sababtoo ah isaga iyada darteed baa dad badan baan ku iri ilaa cadaan ilaa American ilaa Afrikaan ilaa Arab kabaha iyo huluf aan ugu qaadnay ayada waa tookadeedii haddii ay soo cadaan wada maxkamadda ACD Kenya ilaa hadda raadinaysa maysan raadin hadday raadin weydo ACD u tagi weydo ay ka dhuumato sida hadda ay u dhuumanayso ilaa hadda ay khadbi u tahay ya saasa noo balana sidii aan iyada ugu hadlaynay shalay tooba isagana loogu hadlayaa because iyadiiba laba haye gabadhiiba ma dabayl baa qaaday ma diyaarad bay raacday ma baday gashay ma doon bay raacday gabadhiiba lacagti ma la siiyay waa la leeyahay dhulkay hoos gashay miyaa xagee ka baxday gabadhiiba waa la waayay iska daasiyada ilaa ku kaya waayay gabadhu ma jibbeed ma rooxaan bay ahayd xaye ka timor ya akoonkeeda barafee buu ku jiray marka waxay idin sheegayaan ma dhibaato way haysan kartaa laakiin qofteeda lacag qaatay markii horeba markuu lacagta qaadanayay dib ma haysan laakiin dib waa haysan karaa qofka rikaato waa ku jiri karaa gabadhi ciwaankeedu waa maqan yahay ciidamada lagu ma sheega la yiri please guys gabadhaas waa idin baryayaa reer comment hadaa u malaysin ducadiin inay kicin hadarkiina kicin qof walba oo fiidiyowgayga daawado waxaan ogahay reer comment dad badan oo duceeyeen oo ku faa'iido dad badan ay inkaareen oo ilaahay soo fashila qof walba oo Soomaaliya ilaahay ducadiin uu aqbalaa waxa dhahdeen ilaahay rabbi raxmaano cid been sheegay banaankaas ku surid qof walba si qalbiina waa baaro ana u horeeyaan ku ilaahay waxaan ka baryaa hadii anfac sheegin oo musiibo ilaahay ku rido muslimka oo dhan ilaahay ku ceebeeyo haddii gabadhaas aniga saan dareemaa waa laga been abuuranaahe yacni waxa la leeyahay beenay sheegaysaahe inaysan been sheegayna aaminsana waxay ku dhaceen laakiin se ugu dhaceen aysan noo sheegayn diyaaraddeedaa timid okay inaysan been sheegayn waa u jeednaahe ilmaada reyaalo
ducadii noo kacda habarkii noo kacaa anfac waa tuug maxay ka xaday haddii tuug la waaba taalantigeeda maxaa kaa gala wallaahi billah aniga ayaan dhexdaas wata waxaa dhacday in aniga yacni qofka kiiska qoranayo kale choice uu leeyahay anfacna waa qof oo mar walba adiga dembi sheeganayo yacni dembi inaga gala qof accused jiro iyo qof complainer ah ayada waa complainer wala xamaysan kartaa waxeeda okay qofka bini'aadamka markuu wax sheegayane say u dhaceen uma sheegayo beer wuu ku daraa gabadha isku dhacdeen oo kale hadda aniga gabadha isku dhacno waa istagaalna bis ilaahay baa iga sarreeyay inaan fitafarka gelin kufsanin ilaahay musiibaha igu rido saldhiga markaa taga waxa liiqa inaan fitada farta geliyay balaayo dhan la qora waan istagaalna bis labadana una istagaalaha doon ninka dhaxeeyo inta idin sheegaya moogta inkastoo aanu ana raadsaninbo oo hinaasa la igu qabsaday maxaa ula hadashay maxaa ula hadli waadba markaas qabno la hadli jirtay yaa ku dhaafay markaaga baayo ma dhaafay walaa wala sheekaysanaya marka badin sheegaya ilaahay soo fududeeyo anfacay abaa macaan waa ogahay inaan run sheegaysid baaluna qofka ku geystay waa ogahay inuu san adeerkii ahayn saani dareemayo waxaa dareemayaa in ninka ku qabi jiray ee dadka dhibka ku geystay is yaqaaniin bil aadana tahay marka dhib lagu geystana istira hebela ka dambeeyay dadkan xumaantaas dhan waa ay kula rabaan inaad aamin weysay inay dadkaas waxaas ka dambeeyaan ay xumaantaas ku geysteen ilma adeerayaal ama muuqaal korta ilaa hadda ma arkin laakiin ma gabar dhan oo Soomaaliyeed qof Soomaali oo kale u ballaminaya in la kufsado walaalay macnaha ma waxa ka dhigteen wax weyn oo qofka bini'aadamka sumcada looga dilo waa suma ogd waxaas aniga waxaan dareemayaa wiilkan oo dalmana iska yahay gabadhaasna dadka dhibka u geystay ee wiilkaas is yaqaaniin ay dareemaysa ayada laftirkeeda inay wiilkaas uu ka dambeeyo oo mala un ku jirto yeah I'm going thank you okay you know waxaa jiro been iyo propaganda dadka laga gudbiyo gabadhaas propagandada iyo inay been sheegaysa ka gudbinaysaan iyo backgroundkeeda beenta yacni background beena aad ka gudbinaysaan inay been la taa camal oo nahad taa no qof waxaana ku dhicin miska sheegto naaya anfac madax suul qandhafil darro badan ku disho madax dhukuran naaya waa naqayaanti ka waran Soomaaliyay horta iid wanaagsan كل عام أنت بخير أنت أفريقيا جوكتا إيدان إيدي الله أفريقيا نوما جارسيو Soomaaliya horta anaga bini aadan baana wana la qiyaami karaa ma fahanteen sheekadii anfac saddexda bari u ooyay oo muslimka ilaahay u soo jafay bal hadii la yiri waa feeg ba ka sheekay oo fuusta lacag lagu raadinayo ahayd qof bini aadan horta aniga fudeed badaniya Allah aniga fudeed badaniya kaali Febraayo ma dhashay ani kaliya ma Soomaalina way la qabtaa fudeedkaas أنا غير قيرة جبانة أنا هرت جبر أوي صدق أركو شل ما يدرى ذي أنا جيت جيسا أنفعي ولا علي وأنا وريرسي ولا علي هدي حق لك عقلي أولو فصدي وياد بوليسك وعرسا وياد متقنا ضدك كدلمية ضدك كمشمئة وشيء لا أضحي فيديو كان هرت أيضا ما بقى باليدي بقى وبنعقته بيانا مركي هرا بلوجها مد مدو كشكي أنو لوجها مد مدو بابا مركي هرا كشكي ما فهمتين هرت دد بني أنا وانا القيام كرا سجلنا وحي كود عي نبر حق درا الله وقدقو لوكا كتاجني واربودني لكن شيء كذا تاني
propaganda iyo fake iyo fuusta ahayd siday u badan tahay hadda waxaan ku iri waxay soo qortaa la sheegay anfac waqti isiya aan wax ku kala cadeeyo waqti kuma siinayno marka wadnahana goynayso oo fiidiyoga noo soo dhigaysay waqtina ma aadan siin ee waxa samaysaa walaal waxa walba noo taane booliiska tag haddii xaq lagaa galay wixii lagugu sameeyay ciddi kugu samaysay lambarkii lagaaga soo diray fiidiyogan ciddi commissionta waxaas taane aysan ahayn soo maaha still hadda anagu ku garab taaganay fahmaysaa laakiin maalinta aan ogaano waxaan inay been yihiin ay soo cadaato waa laga aamin baxaya ilaahayna waa isku dirtay Soomaalina waa isku dirtay been lawad ka daa'ibada noqonaysaa anfacay horta aniga free oo hintaydii 3 bari baa ooyay Soomaali maxamed ay dhibic baa u soo xisaabsanaya dhibic dadkii aan caayina adigu laakiin Soomaali waa laga dhaadhicin karaa arintan inay been tahay Soomaali wax walba inay ka suurtoodo way og yihiin beesha caalamka ila waxaan international noqoto moogtay sidee looga dhaadhicinay arintan fuusta ahayd qadar علينا دي وانا القيام كرا بني ادم ان هي الهي كوما درناده وانا قصته iyo qadar ee baxgee looga galgashaa waa maalin farxadeed balaayay dhukurane amoodid aadan cad ay rabot hadii aad runta soo cadeyn weydid yaa karbaash ba isku diyaarinaysa adiga laftirkaagu doofaariyay warwaayid salaam ya Soomaaliya kullu caamaanta bixi adduunka maantay qof dambe oo la aaminayo ma jiri doonto don't trust anyone haddii lagu dhaho ka waran wixii baroor naga dhacday wixii oohin naga dhacday wixii rafaad naga dhacay haddii lagu dhaho ka waran fiidiyoga Ethiopian buu ahaa codka gabadha waaba soo saartayba hoogado baayay walay kufsada don't trust anyone waxaa la dhahay runtaada hore beentaada hore runtaada dambeba u daranta hadda waxa la keeni doonaa kuwa caadi loo kufsaday yaa u jawaabi doona yaa dhahaya lacag baa lagu aruurinaya hadduu noqdayba haddana waxa kaaga daranba adduunka sumcaan xumada adduunka noo gashay qofka ka soo horbaxa wuxuu ku leeyahay ma aragtay gabadha Soomaalidu dhibaateeyeen maxaa weeye 5 man ba naakufsaday qof kaste la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah alayhi wasallam sumcad xumada adduunka gashay baa kaaga daran ka sheekee sumcad xumada maanta adduunka taala hadda nimanka Soomaalidu adduunka waxa ka yihiin criminal ba ka yihiin ka sheekee wallahi wa billahi oo tallaahi awal baayago fara ku taagnaa hadda waxa la leeyahay bas ma nimankii inta gabadha guriga ku xirtay 4 uu siga dagay bal sumcad xumada ka waran lacag darteed ina lacag la helo oo maalin kasta gabdhaha la cimaamadaay ma gabadha caadi cimaamad caadi inta loo soo dhajiyo ayadoo ismacad dilin waxba balaayo isgaarsiin gabdhaha maalin walba inta cimaamada loo soo dhisay malaayiin lagu dhuftaa ma caadi si sharaf leh saa ku doonto inta wiilasha Soomaaliya dhibaateyn lahayd inta sumcad xumo u raadin lahayd inta qof bil aadana ku dhihi lahaa beenta bal arag ilaahay baa kugu dhaarshay wallahi wa billahi oo tallaahi wixii oo hin naga dhacaysay ilaahay samaystay baa ku dhaartay wixii oo hin naga dhacaysay waa been ilaahu uqsima billahi waa been gabadhuna waa fiidiyoguna waa Ethiopian waa naag Ethiopian oo niman Ethiopian ay kufsanayaan maxaa la dhahaa suuqaas ku soo dhaweeyay waa Ethiopian gabadha la kufsanayo waa Ethiopian nimanka kufsanayana waa Ethiopian waxa la bartay in emotionally-gaaga lagu ciyaaro dadka emotional lagu ciyaaro waa la kufsan because abo idinka victim naga dhigteen nimanka Soomaali ay kanaagaha Soomaalida victim ka dhigay ayaa ku dhahayo aan nothing waxba ma tiid gabar kasta oo Soomaali ah meel kasta ay joogto waxay aaminsan tahay inay victim inay tahay aaminsan tahay hasheekeeya idinku marka gabdhii victim ka dhigteen oo gabdhii waxa jirin ka sheegteen oo waxaan jirin ka dhigteen waa kaas ka xaabiya mid kasta victim hasa ka soo dhigto waa la kufsaday lacagta loo aruuriyo adduunkana sumcad xumaha ku gasho bal ka sheekee adduunkana sumcad xumaha ku gasho qofna ha aaminin maanta adduunka maanta jira midda ka waxa kaaga daranba
annaga dhan sidee fiidiyooga u fahmi weyn in Ethiopian dadkan aysan Soomaali ahayn balina dhoodhoohanahay hal qof oo fahmi kuma jiro kul wada qeyra Japan hoogaye gabadhi waa la kufsaday qof walba wuxuu u malaysan waayay gabadhan intaas oo qonina ay xoogayso ba qof walba aqligiisa ka dhaadhici weysay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un walaalayaal rabbi ta'ala soo waxa ku dhahdaan sorry aboowe wallahi bilaa talaa sorry ani dulmiga ma jeceli qofka qof dulmeena Allah subhanahu wa ta'ala ba ka jaa'isaynaya yawm al-ayam ba ilaahay ka jaa'isaynaya gabadhan arinteedu waxay maraysaa booliiskees Soomaalida waa inay iskaga baxdaan booliisku shaqadiisu qabsanaya gabadhan wixii kufsaday baa la keenayaa hadii la waayo in dawladdu ma ogolaanayso brank bay ahayd iyo ma ogolaanayso bandheelay iyo kufsigu dheel ma galo dilkuna dheel ma galo wadan dhisan oo dad leeyahay imaateen kiinni baad soo kharibteen ku dad leeyahay imaateen markaasaad waxaa rabtaan inaad dadka aad ku beertaan walbahaar aad ku beertaan inaad sharciyadii aad jajabisaan baad rabtaan inaad meeshan waa la kufsaysan ninba ay kufsatay ay leeyihiin my friend dawladdu waa inay tallaabo sharci la ka qaado waayo dadka ku dheelay sharciga wadanka umana dul qaadanayno annaga gabar Soomaaliyeed intay meelo kala tagtay been sheegaysa scam waaye ama reeb buu noqonayaa ama scam buu noqonayaa oo dad lagu baaranayo labadaba waa dambi reebkana waa dambi scammingkana waa dambi marka dawladda meesha ay joogto laamaha amniga waa inay tallaabo sharci la ka qaadaan qoftaan iyo inta qof ay sheekadooda ku jirto oo dhan iyo wixii aqeelinayay haday actin ahayd iyo haday dhab ahayd dawladda dhab bay u qaadanaysaa kulligood maxkamadda ku shubto exploitation balda wadan baad imaateen sharci leh sharciga wadanka aad ku dheelaysaan mar hore ay booliistu waxa inay shaarbaha ku qaataan mar hore and because wax lagu dheelo ma maadar iyo reeb wax lagu dheelo ma kaftanna ma galaan brankna ma galaan waa case dhab ah oo khatar ah oo umada hata in dhagahooda ay maqasho lama rabo waxba la kufsaday in laga hadlaa lama rabo dam kufsiga hadalkiisa dambi sida uu dilka dambi u yahay iyo kufsigana dambi u yahay annaga ma yeelayno in gabdhaha Soomaaliyeed waswaas la galiyo ma yeelayno carruurta Soomaaliyeed in dhagahooda wax wasaq la galiyo shan nin baa kufsatay oo scam ah shan nin baa kufsatay oo run ah waa in la ogaadaa keeskan si ayna mar dambe u soo bixin waxyaalaha noocaan oo kale ah wadaadada odayaasha mar horena oo idin sheegay iyo ciidamada ilaamaha amniga ee meesha jooga keeskan waa inay sidii tahay ay faraha oo la galaan waaye ma yeelayno annaga gabar kasta inta imaato inay ilmayso waa la kufsaday waaw ay dhahdo oo been iyo kir ah scamming waaye ama kufsi waaye labadaba waa dambi hadda dadka aad ku beer la xawsanaysid oo aad lacag kaga rabtid waa la kufsaday shan nin ba aysan yeeshay oo dadka arrin dambi way scamming way waan idin sheegay bari hore beenta iyo lacagta haday isku mar dhacaan waa dambi been waa sheegi kartaa laakiin lacag inaad been ku raasatid scam bay noqonaysaa is a crime lama ogola adduunka lagama ogola lacag iyo been inay isla socdaan lama ogola sex iyo money inay isla socdaan lama ogola waa sheeyaha xaaraanta ah ee adduunka xaaraan ka ah sex and money inay isla socdaan lama ogola sex drugs and money and sex inay isla socdaan lama ogola and ben lie and money ben iyo lacag inay isla socdaan lama ogola dambi weey lacag iyo ben markay isla socdaan waxay noqonaysaa scam sex iyo money markay isla socdaan prostitution bay noqonaysaa waa illegal prostitution way lama ogola drugs markuu soo galo waa ka daran tahay drugs and money laundering ay noqonaysaa marka waa inaad fahantaan sharciyada adduunka u yaala ma rabna annaga gabdhaha Soomaaliyeed wax ceeb u keena ma rabna annaga ummadda Soomaaliyeed wax u keena ceeb bay keenaysaa ummadda Soomaaliyeed bay ceeb u keenaysaa markay naag inta imaata ay dhahdo ninkaygii baa niman ii balamiyay oo waa la ikufsado video baa la iga duubay beenta noocaas oo kale waa dambi waa blackmailing dambi waaye
laamaha amniga hadday Soomaaliya joogto gabadhan hadday Kenya joogto hadday Ethiopia joogto booliis baa jira investigation na sameeya qoftan meesha joogto ha loogu tago maxkamadda ha la saaro ha ku waana qaataan kuwa kale ma yeelin waxaas ummad Soomaaliyeed oo muslim ah oo meel degan in la fadeexeeyo aabayaasha la fadeexeeyo hooyooyinka la fadeexeeyo gabdhaha sharafta la fadeexeeyo hasbaanka ragga xaaskooda la fadeexeeyo xaaskii la fadeexeeyo ma yeelin waxaas nin ajnabi ku jiray niman ajnabi meel ugu geeyay waa ragga Soomaaliyeed ba ceeb loo raadinaya gabdhaha Soomaaliyeed ba ceeb loo raadinaya arrintaas waa in meel la saaraa haddii gabadhan la kufsadeen dadkii kufsaday ee meesha ka qaylinaya waa in la soo qabtaa haddii dadkii la waayeen waa in iyada la xiro waayo oo maxkamad la saaro oo scamming iyo legal activities ay ku jirtay lagu eedeeyo waayo runta idin sheegay annaga uma dul qaadanayno dhaqanka noocaas oo kale ah ee aad ummadda sharaftooda iyo sumcaddooda iyo diintooda aad ku baabiinaysaan uma dul qaadanayno Ramadan Mubarak